بسم الله الرحمن الرحيم أرضي عشر كأني لبعض كهاد لي برمجيدة وحينو كسو قادن إن قلبتها قيبها برمجيدة محا برمجيدة أرضي جو لها وبرمجيدة أما محا أبرنا يساب برمجيدة وحلا يراد برمجيدة وحينو كسو قادن عشر كأنه هراء وحي كريبا برتا أما لبطالتان أو إن ليلالي مهم تاعي marka arday barnaamijyada dadka horta iyo waxaan soo sheegnay barnaamijyada xoolaha iyo barnaamijyada irta marka ilaahay kuma samadiidee barnaamijyada dadka waxa loo qaybiyay saddex qaybood waxay isugu jiraan horta 7 qaybood laakiin saddex magac baa la isugu koobay koow waxa la yiri saddexda دوب كله لابو صدح دا تورست له لمبر صدح إيا لابدا عصرقة وصدح دا دوب كله هالمان هذا الكوماتشيري إيا لابدا تورست له إيا لابدا عصرقة marka hadan soo ku hormarno saddexda duub kale duub hada maqasho waxa weeye waa imaamad oo kale ama hadii la ku ron yahay go'shaala ama koofiyad wuxuun ay dadka kale kaga duwan yihiin tusbaxan oo kale uu ka mid yahay waxyaalaha lagu garto barnaamijyada ama odayaasha duqaytida waayahay waxa ku soo haray madax dhaqameedka saddexda duub kale maxay yihiin waa madax dhaqameedka wadaadada iyo dumarka saddexdaas waxa uu aqoonsanaysaa saddexda duub kale labada turista leh turis macni in la ilaaliyo la xanaaneeyo gacanta lagu hayo waxa weey turis bay leeyihiin in loo turo dad wadada ugu hormarno kale ama iyagoo xoogaa meel rasan oo kale yaal ama xoogaa mise u dayacan kor u qaado kaabto turis bay leeyihiin waa caruurta iyo waayeelka caruurta iyo waayeelka labada casriga casri hada maqasho muxuu yahay waa wax waagi hore aan la adeegsan jirin laakiin waagi dambe ee umadu ay ilbaxnimada ku talawday meeshay gabadhu ka heestay oo tiri ayr xoola laga dhaqay la caraabi gaajo cilmigii wax laga baray oo erka waatan loo kacay marka waxyaalahaas waa wax casri ah oo yimi marka labada casriga waxa kamid ah macalinka iyo dhakhtarka waaga hore arday ma jirin waxa la yiraahdo macallin dadka wax bara oo de school marka macallin dhayaha ay kugu soo dhacaan macnaheedu labay kala noqonayaan midna waa kii dugsiga quraanka joogay midna waa kan schoolka qalinka iyo buugga dugsiga jooga marka waxa jiray waaga hore ninkii quraanka yaqaan ama diinta dadka baraya dadku waa xireysan jireen meel fog bay aad jireen ama waxa jiray mid reer guuraaga la socda dadku reer guuraabay ahayn awr bay ku guuri jireen ciyaalka dudada dadka inta meesha wada degan baa dudada la yiraahdaa inta halka joogta uu wax bari jiray caruurtooda quraanka goortu u dhameeyana qaalin geel ah baa la siin jiray ninka noocaas oo kaleeta ah waa nin jiray oo bulshada la socday oo diintu intay umada soo gaadhay ama dadku ay wax barteen dad waxa jiray jahliga la dagaalamayo oo dadkii daba socday oo wax barayay laakiin macallinkan iyo in school la furo iyo in uniform la sameeyo iyo waxaasi waxyaalaha ilbaxnimada ay dadku ku talaabeen ay gaareen bay kamid tahay marka barnaamijyada labadan dhakhtarkuna wakan dhakhtarkuna isaguna wuxuu kamid yahay barnaamijyada casriga sababtu waxay tahay dadku waag hore waxay isticmaali jireen adeegsan jireen dhirta daawo dhaqameedka geed xididkii geed qoloftii oo diirkii hadii la ku rooyay mid lagu cadaydo mid hadii la ku rooyay si kale loo adeegsado marka dhakhtar inta meel la furo la yiraahdo isbitaal weeye qaliin baa la gelayaa dhakhtarka dhimirka dhakhtarka hadii la ku rooyay waxaasi waa waxyaalaha casriga ah ee dadku goortay wax barteen ay keeneen oo ku soo biiray labada marka casri ahaan baa loogu daray arba fahanteen
laakiin birimageydadu waa kuwa birimageydada waxaynu u tagaynaa arday dhirta birimageydada dhirtu waxaa la yiraahdaa waa geedka harka leh geed kasta oo har leh anfac leh godinta ama faas hadba ka u taqaano ka ilaali geedku waa waxa aynu ku xirannahay oo laf dhabarta inoo ah wuxuu leeyahay caleen wuxuu leeyahay diir wuxuu leeyahay xidid wuxuu leeyahay har wuxuu leeyahay quruxda ishu ay ku diirsanayso soo jeedin daaniga tusaalahaan halkan dangeeda ku online meeshan quruxda badan ayaan wax ka soo jeedinaya ma imaadeen meel abaara bay ahaan lahayd laakiin quruxdaas uu leeyahay wuxuu leeyahay mar baynu ka hadlaynaa dhirta oo casar dhan baynu kaga hadlaynaa ayaan hadda gudagelin laakiin muhiimaddu waxa weeye geedka birimageydada lagu leeyahay reer guuraagu xeray leeyihiin xerada ay degaan geed baa ku horyaal ama muska dama ku yaala waa geedka intaan aqalku dhisnayn caruurta la geeyo qofkii socotada ah gogasho loo geeyo la harsado harkaasaa loo aagay reer walba soo degay geedka intay fees qaataan laamihiisa intay jaraan kuma ootaanin xerada waa lama taabtaan la soco marka geedka harka leh waa inaad la ilaaliyo birimageydada xoolaha ku soo haray xoolaha iyaga waxa birimageeda neefka u ahay muxuu yahay waa 3 neefka gaadiidka ah ee reerku ku guurayaan iyo neefkii dhalayay ee taranta ahaa neef riman oo markaa inuu dhalo si dhaweeyo taran laga sugayo ah iyo neefkii irmaana ee markaa la maalay caruurta caanaha looga lisay waayeelkii looga lisay adiga caadiga ah ka maalaysay soo 3daas neefba birta waa laga ilaaliyaa soo ma fahmin marka birimageydada xoolaha oo kala dee xoolaheen waa badan yihiin laakiin 3daas baa loo macnaheedu la sheegaa inay yihiin birimageydo lama taabtaan dii marti kugu soo hoyata neef dhalay miya biraynaysa waa may dii qof sadaqa raadinaya ku yimaado waxa la rabaa neef isagana wax u taraya adduunka adigana aakhirada wax ku tarayana la baxay laakiin neef amaare u weyday muquuna ah ina siisid waa ceeb marka birimageydadu waa neefka wax tar kale oo la ilaalinayo marka xoolaha la joogo dhirta marka la joogana geedka har kale anfac leh soo fahmin dadka marka la joogana qofka taariikhiga oo de marjaca inoo ah inaan u laabanayno hadhow ma fahmin waa filaya casharkaas birimageydadu inuu ka degay aad ayaad u mahadsan tahay hal cashar baa igu harsan iyo layli badan oo idinka weydiin doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh